رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري وهليان xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa booqasho tacsiye waxa uu tagay qoyska ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay marxuum nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Diiriye ku xigeenka maarayaha dekedda magaalada Muqdisho ahna wiilka uu dhalay marxuum Axmed Diiriye ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyay booqashadan tacsida ugu yimid waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo golihiisa iyo dhammaan marti sharafta sida qiimaha iyo qaayaha leh ay noogala soo qayb galeen tacsida iyo geeridii ku timid nabadoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kamid ah mas'uuliyiintii booqashada ugu tagay qoyska uu ka geeriyooday nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa tacsi u diray allana uga baryay in jannadii Firdawsi uu ka waraabiyo marxuum Axmed Diiriye Cali ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu kulligeen samir iyo iimaan naga siiyo gaar ahaan intii uu ka tagay iyo intii u dhaweyd iyo intii saaxiibada la ahayd iyo intii uu la sheekaysan jiray intaba ilaahay samir iyo iimaan inuu ka siiyo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga iyo wasiiru dawlaha wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliya ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed u weydiiyay cafis marxuum Axmed Diiriye Cali waa nin ku dhiiran geesi ku ah inuu ka hor yimaado xumaanta geesi ku ah inuu wanaaga dhiirigeliyo oo garab istaago wuxuu ahaa nin haliyey ah oo waddankan soo halgamay waqtiga adkaan marxaladda la soo marna oo ka qayb qaatay waxaan leenahay ilaahay u naxariisto jannada Firdawsi ilaa ka waraabsho waxaan adkeenayaa intaana meeshaan joogta iyo intaan gaari karnaba kelmadda cafiska inaan iswada gaarsiino cafi iyo masaabax ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guud ahaan ehelada iyo qaraabada qoyska iyo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyay geeridii ku timid nabadoon Axmed Diiriye Cali waxa uu tilmaamay in marxuumku waqti badan ku bixiyay dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed nabadoon Axmed Diiriye waxa uu ahaa nin qaran waxa iska lahaa qaranka Soomaaliyeed waxa uu ahaa haliyey u adeega ummadda Soomaaliyeed ma ahayn nin qolo kaliya u adeega waxa uu ka soo shaqeeyay dalkan ama u soo dhibtooday waqti dad badan aanay dhibtoon karin ama u adkaysan karin dhibka waxaan halkan u fadhinaa miro dhalkii dadaalkii uu soo dadaalay isagay intii la midka ahayd sidaas daraaddeed anigoo ku hadlaaya magaca dawladda waxaan idinku garab taagannahay tacsida iyo aaska nabadoon Axmed Diiriye Cali Allah u naxariistay wax walba oo nooga soo aadana diyaar ayaan u nahay anaadna igu iimaanaysiin haddii alla idmo waxaa lagu wadaa marxuum Axmed Diiriye Cali in lagu aaso deegaanka Gidheesh oo ku dhow magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho